ururka haweenka ee intifaac ee fadhigiisu yahay magaalada Abdaal ee degmada Mandheera ee hoos timaada xarunta gobolka Saaxil ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID kuwaasi oo ka soo digrogtay xisbi xaakimka kulmiye waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi iyo afhayeenkooda waxaana kamid ahaa hadaladoodii sidan ee gobolka Saaxil waxaanu nahay ururka la yiraahdo intifaac ee ka jira degmada Mandheera taasoo aan lahayn maxay tahay anigoo afhayeenkii ururka ahaan jirayna ururkii hore maxay tahay gudoomiye ku-xigeenkii ururkii hore ee Barqasan waxaan u sheegayaa maxay haytay halkan waxaan naga soo qabsatay degmadan aynu joogno maanta ee la yiraahdo Mandheera xuquuqda dumarka lagu aaso iyada oo aan wax looga ogol jirin iyada oo markay hadlaan la yiraahdo maxay haytay dumarka way waasheenay naga qabta dumarka xaq hoose naga mariya iyada oo markaan nidhaahno maxay haytay degmada gobolka degmada maxay haytay maamulkeeda aanu la hadallo ay Saaxil u dhacdhacaan ay yiraahdaan maxay haytay haday yiraahdaan xitaa dumarku ay raacaan ay laba dumar ama saddex dumar aan raacsan la yiraahdo xagga dambe ku joojiyo qumooyinkan ay nagu soo deynina iyada maalinka xaweeyaan wax allaala wax nalaga ma waxaan ka karweynaa naga caawiya maxay haytay wax barashada dad naga caawiyaan ka karweynay waxaan ka karweynay xafiisadana oo qadiyaan ka karweynay waxaan ka karweynay hadii banka biyayagi ba xilligaas oo boq waxaan maalintii walba waxaanu dhaansanaa 10,000 oo foosta ah caalamka meel ka jirta ma jirto gaashaama laga ma helo oo kama jirto taasi meel ku shilin jirkaan klasiya kama jirto nin walba maanta dan leeyo yimaada gobolkaanu cambaaraynayna dawladda madaxweyne Siilaanya waxaan u sheegaynaa inaan lagu kalifay macaaradka inaan wax allaala iyo wax mar dambe aanan nala oranin maxay tahay aan waxba nala saarin inaanu macaaradka noqon doono ku biiri doono xusbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID inaan ku biiri doono dhamaantii macal caruurteeda macal annaga waxna la saari doonin wassalaamu calaykum hogaamiyaha ururka intifaac halkan waxaan ku qabanay maanta shir jiraayid inaanu maxay raadayay kaga hadalno dantayada waxa weeyaan waxaanu nahay anagu urur aad in badan jiray waxaanu nahay urur la soo shaqeeyay badan dawladda maanta waxaanu tirsanaynaa caburin iyo cadaadin ayaanu tirsanaynaa mar haddii ay noocaan noqotana waxaanu ku tashanay inaanu ka gudubno oo aanu uga gudubno xisbiyada macaaradka maanta ka dawliga waxaanu doonaynaa inaanu ku biirno oo maxay raadayay xisbiga UCID inaanu ku biirno ayaanu doonaynaa waxa weeyaan wax badan baanu ka tirsanaynaa madaxda gobolka waxba xalaaliye waxaan ka haynaa ma jirto kuwa ka soo baxay degmadan ee nuu shaqeynay ee golaha guurtada ka soo baxayna waxba kama hayno mid walba waanu ka qaawanahay maba naqaan baan nalii markaan tagnay maxay raday wadanka maanu cabanayna maba naqaan baan nalii markaas markaan aragnayna xaqayga iyo xuquuqdayda haysan waagi bariyanaanu heegan u nahay waxa weeyaan macaali gudoomiyaha gacsan oo waxba lagu qorin waxna aan lagu aaminin waxa weeyaan waanu ka guurnay anagu maanta waxaan uga diga roganay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ayaanu gudubnay geesta kalena waxa ururkaasi soo dhaweeyay una mahad celiyay ku soo biiritaankoodan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID xarunta gobolka Saaxil Marwar Roode Axmed Yaasiin waxaana kamid ahaa hadaladeedii sidan waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa oo aan leeyahay soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan ururka intifaaca degmada Mandheera kaasoo ah urur weyne haween oo maanta markii ay si kasta uga baaraan degeen ay ogaadeen halka uu aayahoodu yaallo ku soo buuray UCID waxaan leenahay UCID ku soo dhawaada idinkoon idinku talageli doono kana muuqan doontaan xubnaha gobolka iyo degmada ilaa heer qaran waxaan leenahay waanu idin soo dhaweynaynaa waanaanu idinla shaqaynaynaa markii ay idinku garateen inaad gashaan hawshaasi oo ku biirtaan xusbiga UCID waxaan ogaanay in ay gobolka dadkii hay in ay eryanayeen inankii miidiyaha ee wax idinka duubayay in la keenay cagatuglayn caburin in lagala dhuunto sidii dawladda afweyne qofka xurriyatul qowlkiisa uu la dhuunto oo kaantaroolada loo dhigo in la qabto wariyaha oo laga qaado kamarada ama la garaaco ama la xidhaba dawladda Siilaanya miidiyaha waa tii halkan keenay weeyaan propagandada ugu weyn u sameeyay maanta ayay abaalkeedii ka dhigtay miidiyaha in ay eriyato waa Cabdiraxmaan Maxamed Cige TV caalamiga ee Royal magaalada Berbera.